وعن داود soo dhawow beesha xawaadle ee ka dagaalanta bariga gobolka Hiiraan sidoo kalena iska xoreysay ururka al-shabaab gabi ahaanba deegaanadeeda ayaa mar kale waxa ay dhaxda u soo xiranaysaa sidoo kalena ay dagaal xoogan inay ku qaado halkaas ay xoreysay ay doonaysaa degmada Aadan Yabaal iyadoo halkaas beesha xawaadle ay taariikh ka dhigi rabto mar kale in ay gabi ahaanba ururka al-shabaab ka xoreysay degmada Aadan Yabaal oo muddo isbuuc ku dhaw ay ku tamashlaynayaan kuna raaxaysanayaan deegaanadii iyo degmooyinkii ay dawladda federaalka Soomaaliya ku sugnayd muddo mas'uuliyiinteedana ay joogeen Aadan Yabaal ayaa mar kale waxay gacanta u gashay sida la socotaan ururka al-shabaab isbuucii la soo dhaafay halkaas oo lagu dilay taliye iyo sidoo kale ciidamo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsanaa oo halkaas ku sugnaa halka odawa ay shuutay gabi ahaanba degmada isaga baxeen iyagoo magangeliyo u doontay muuqkorina muddo ku sugnaa xawaadle ayaa mar kale waxa ay ciidamadii ugu badnaa u abaabulayaan inay taariikh lama ilaawaan ka dhigaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay mar kale doonayaan inay gabi ahaanba xoreeyaan hase ahaatee dadka deegaanka Aadan Yabaal ma ogol yihiin in mar kale xawaadle ay xoreeyaan maxay dawladda federaalka Soomaaliya ka aaminsan tahay macawisleydan ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ee wali aan u hubaysnayn sidii beesha xawaadle oo kale deegaana aan wali ururka al-shabaab ka qabsanin oo kaliya iska badhaaf degmada Aadan Yabaal oo ah degmo qadiimi oo weyn sidoo kalena ay dawladda mas'uuliyiinteeda ku sugnaayeen maxaa macawisleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ama beesha abgaal ku dhacay ay ururka al-shabaab wali ugu bacdiga leeyihiin iyagoo dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeellaba ay la garab taagan yihiin iyo sidoo kale ciidamo qaranka Soomaaliyeed oo sidoo kale iyagana ka barbar dagaalamaya iyo duqeymo baan oo beesha caalamka ay geysanayaan Imaaraadka iyo Mareykanka ay haystaan maxaa wali gobolka Shabeellaha Dhexe ay u xorey laayihiin deegaanadooda waan kula wadaagi doonaa sidoo kalena beesha xawaadle ayaa iyagana waxa ay ciidamadii ugu badnaa ee macawisley ee beeshaas ay leedahay waxa ay dhoobeen xuduudda Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyagoo halkaas dagaal xoogan kula galaya ururka al-shabaab una socdo halka iyo Aadan Yabaal waxay beeshaasi doonaysaa inay mar kale xoreyso Aadan Yabaal oo ay dawladda gacanteeda ka baxday ahna degmo qadiimi sidoo kale ururka al-shabaab ay ka abaabulaan weerarada ay doonayaan inay halkaas saldhig ugu noqoto ay ka abaabulaan weerarada ay u geysanayaan masaajidka Cali Guduud Caadale iyo sidoo kale Jowhar dhinaca kalena waxa ay xuduud leedahay Aadan Yabaal aboorey ururka al-shabaab laftirkooda ay dhibaato badan ka mareen in dawladda ay ka saarto mar kale xuduudda Hiiraan ay garab ku haysaa ururka al-shabaab ayaa mar kale waxay isku dayayaan inay qabsadaan maxaas iyo muuqkori intii ay ku mashquulsanaayeen dhinaca aboorey saacate beesha xawaadle ayaa isku soo abaabushay oo waxay gabi ahaan basaldhig ka dhigatay magaalada muuqkori degmada muuqkori ee gobolkaasi Hiiraan halkaas oo ay dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsanba ay ku sugnaayeen hay nabad iyo xasiloonina ku joogan degmada muuqkori wax xoreey ma aha ciidamo dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale ma aha waxa xoreeyay Afrikaanta ama ciidamadan midowga Afrika u jooga Soomaaliya ee waa macawisleyda beesha xawaadle waxa nabadda ka dhigay waa iyaga waxa ku sugan waa iyaga waxyaabaha la yaab kale ayaa ah in mar kale muuqkori ay noqotay halkii ay saldhig u noqon lahayd ciidamada Hirshabeelle guud ahaanba sidoo kalena ay ka dagaal galaan labada dhinac sida Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Hiiraan beeshan oo ma hadisay dagaalka ay ururka al-shabaab la galeen deegaanadooda ayaa mar kale waxa ay doonaysaa in ay u soo ruqaasato dhinaca iyo gobolka Shabeellaha Dhexe oo dhawaan ururka al-shabaab ay weerar baan ku qaadeen sidoo kalena degmada Aadan Yabaal ayaa ah degmo ay ururka al-shabaab si buuxda ula wareegeen oo ah degmada kaliya ee degmo marka la dhaho Aadan Yabaal ay ugu sugan yihiin gobolkaasi Shabeellaha Dhexe si kastaba ahaatee daawade ururka al-shabaab ayaa dagaal baan waxa ay dawladda kula jirtaa gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo Shabeellaha Hoose al-shabaab ayaa mar kale waxa ay dagaal xoogan ka soo qaadayaan deegaanada galbeedka gobolka Hiiraan halkaas oo ay mar kale doonayaan iyagana inay ku qabsadaan maxaas muuqkori jalalaqsi iyo sidoo kale bulburda ee dhacda gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya halkaas oo ay ka hor joogaan macawisleyda beesha xawaale sidoo kalena ay gabi ahaan diidan yihiin in mar kale ay dawladda la gasho dagaalkaasi xoogan ay ururka al-shabaab deegaanadeeda ugu xoreyso ay ku sugan yihiin haatan dhinaca kale Aadan Yabaal ay dawladda federaalka Soomaaliya wili ugu qorsheysan in daacsa mudooyinka soo socda lama oga laakiin haatan ma u qorsheysna mar kale in Aadan Yabaal ay dawladda la wareegi doonto sidoo kale ay wada abaabul ka dhana degmada Aadan Yabaal si ay gacanta dawladda mar kale ugu soo celin lahayd maadaama ay shuutay odawa xamar isaga sugan yihiin ee maankii laga qabsaday Aadan Yabaal kadib fashilkii ka dhacay Aadan Yabaal ay mar kale iska imaaneen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya guryahoodana ay isaga soo laabteen si kastaba ha ahaatee beeshan xawaadle ayaa mar kale isku dagaysan deegaanadaasi gabi ahaanba ay xoreyso halka Aadan Yabaal ay kaabiga ku hayaan sidoo kale xuduudda gobolka Hiiraan ay dhooban yihiin si ay mar kale lagu fasaxo kaliya inay Aadan Yabaal isku xoreeyaan hase ahaatee dawladda oo mar kale shir la qaadatay maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa mar kale waxay doonaysaa inay dardar geliso hanaanka
dagaalanka ururka istaraatiijiyada dagaaleed ee ururka al-shabaab mar kale lagu wada dagaalamayo dawladda mar kale looga fadhiyo inay bedesho qaabka ay ururka al-shabaab ula dagaalamayso sidoo kalena mar kale looga baahan yahay in ururka al-shabaab ay gebi ahaanba halkaasi ka saaraan deegaanada ay ugu sugan yihiin koonfurta Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga daba noqonayay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ugu dambeyn u muuqday inuu ku fashilmay maadaama aadan yabaal oo dhowr mar uu tagay sidoo kalena uu sheegay in rag lagala ballamay ay mar kale gacanta dawladda ka baxday ururka al-shabaab haatan ku jirto aadan yabaal ayaa waxa la sheegaya dadka shacabka la soo tabinay dhibaato badan ay kula kulmeen gowraceen dhibaato badan ay u geysteen dad qaarna ay u shaqeeyeen in dawladda ay la shaqeyn jireen sidoo kalena ay goobaha qaadka lagu gaday iyo goobaha geerishka ee baabuurta lagu cilad bixiyay dad badan ka wateen oo qaarkood dileen qaarna wali xabsiyada ugu jiraan maxabuusan ay yihiin ururka al-shabaab hadii aadan yabaal ay dhawaan ahayd mid caalanka ululaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haatan markale waxay gacanta ugu jirtaa ururka al-shabaab halkaas oo dadka ay yihiin maxbuus iyo gacan ku jiriyaal masaakiin ah oo al-shabaab si doonaan ay ka yeelaan dhibaatana ay u geysanayaan iyo qaarkood hooyo uur la sheegay inay halkaas ku dileen ay ku gowraceen aadan yabaal ayaa markale waxay nasiib u yeelatay ururka al-shabaab gacanta u gashay sidoo kalena ay ka argoostaan dadkaasi dawladda sida qalbiga ee dhiiranaanta u soo dhaweeyay dawladana iyo dawladnimo dalka ka hirgashan aad u jecla si kastaba ahaatee daawada dawladda ayaa mar kale waxay doonaysaa inay dagaal xoogan ururka al-shabaab la gashay iyadoo caawinaad ka helaysa beesha caalamka iyo macawisleyda beelahaasi dega gobolada dalka iyadoo dhawaan la filiyay in degmooyin cusub ay dawladda la wareegto hadii aad inta nala soo gaartay fadlan waxa tahay saaxiib wanaagsan fadlan muuqaalka like saar channelka subscribe saar mahadsanid like saar muuqaal si saaxiibo badan u gaaro sida adiga oo kale u wanaagsan ay noogu soo biiraan subscribe channelka saar mahadsanid daawada